sida la sheegay aan la qabaa safarka taariikhiga ah ee wali socda ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdida ballaaran uu hogaaminayo ay ku marayaan dalka gaar ahaan xeebaha dalka runtii safarkanu haddii la soo ururiyo gebigiisu waa wada taariikhi xeebta dalkeenu waa xeeb aad u dheer ilaa 1 kilomitir bay ku dhowdahay 1 kilomitir bay xeebaha dalkeenu ku dhow yihiin waana xeeb aad u dheer waana xeeb runtii qanina ah wadooyinkeeda iyo xaaladdeeduna ay runtii dee adag tahay oo loo yahay sida lagu maray sida lagu gaadhay inay adag tahay isagoo madaxweynuhu maskaxda ku haya muhiimadda xeebaha iyo khayraadka ku duugan iyo muwaadiniinta degan iyo sida ay ugu baahan tahay in wax loo qabto ayuu go'aansaday intuu kaga soo qabto galbeed inuu lagu yacdo ilaa laasqor isu maro runtii waa safar taariikhi ah oo raad ku yeelan doona dadka Soomaaliland ee xeebaha degan iyo kuwa dalka wada jooga iyo kuwa dibadda joogaba waxqabad muuqdana runtii intii arkaysay waa laga sameeyay oo meelo badan baa la dhagax dhigay oo dadkii baa la soo wareystay oo iskuuladii baa qaar cusub la dhagax dhigay kuwa kale la dhiirigeliyay caafimaadkii dekedihii kalluumaysigii oo halbowlaha aad u muhiim ka ahayd qaybta kale uu taariikhi ka yahayna waxa weeye iminkadan sidii xildhibaanada hore ay sheegeen wadadii Ceerigaabo ayana dhinaca Ceerigaabo laga soo bilaabayo waxa gaadiid aad iyo aad u culus maray oo Ceerigaabo tagay oo macadaadkii lagu dhisayay iyo qalabkii oo nooc walba leh haddaad qalabka iyo niyadda iyo dhaqaalaha isla heshaan oo dadku ummaddu isla hesho way suura gelaysaa wadada Ceerigaabana insha Allah waxaasuna waxa weeyaan abaabulka iyo hogaaminta iyo dhiiranaanta ay dawladdu samaysay oo madaxweynuhu ku yahay runtii waxa wanaagsan bini'aadamku waa qiraya qofkii aan qiraynina dee isagay u taalaa laakiin sida bulshada Soomaaliland dabadiyo gudaba ka muuqata safarka way soo dhaweeyeen waxqabadka way soo dhaweeyeen madaxweynaha waa ugu hambalyeynaa ummadda Soomaaliland sida fiican wada qiimeysayna waa ugu hambalyeynaa waxaanu kaloo iyana halkan fariin uga diraynaa waxa weeye qoladan qaramada midoobay Soomaaliland waxa ka socda ee dhinac walba leh ee horumar leh ee dawladnimo leh ee nabadgelyo leh ee mashaariicdii dawladda iyo shacabka iska wax qabso ay ku fogan tahay la iska kaashanayo ee laamiye la dhisayo ee airport la dhisayo ee iskuul la dhisayo ee jaamacad la dhisayo ee horumar lagu fogan yahay nabadgelyo lagu fogan yahay marka ay ka hadlayaan ama security councilka ay warbixin geynayaan ama ay Soomaalidii hore ka wada hadlayaan waxa qoray ka soo qaataan waxa weeyaan gudoomiye xisbiga meel istab lagu joojiyay meel ba qolo ka khudbadayn lahayd oo xisbi mucaarada lagu joojiyay waxa aynu ka sheekaynayno ma soo hadal qaadaan magaca ay sitaana waa magac Soomaaliya iyo Soomaaliland ku jirto ninka Nicholas Kay la yiraahdo ee Soomaaliya uga wakiilka qaramada xogayaha guud waxa la wuxuu warbixin sheegaa waxba kama jiraan waa warbixin cadaawadi ku jirto marka runta lagu hadlo tii maalintii dhaweyto uu satellite ku jeedinayay security ka hadlayay baa la mid aha tii ka dambeysay oo baakimoon u gudbiyay baa kamid ahayd waxaba one item buu Soomaaliland ka soo qaatay oo qura oo gudoomiye ama nin xisbi mucaarada ka tirsan baa meel hadal loo diiday dhinaciisana wax wada faana oo aan xabadi ka jirin oo koonfur ka qabtay oo dawladnimo ah oo uu leeyahay dunidiba durduriye malaba ka muuqanaya dadka ku akhriyay ummaduna waa arkaysaa annaguna waanu arkaynaa waxaanu leenahay dhexdhexaad noqda Soomaaliland waxa ka socdana qira. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.